Assalaamu calaykum daawadayaal iyo dhagaystayaalba waxaad ku soo dhawaataan mowduuc kooban aan kaga hadlayno fardaha iyo waxtarkooda. Ogaalkeena iyo ogaanshiyahaygaba sida aynu ka wada warqabno, Soomaalidu waa dad xoolo dhaqato ah, waxayna caan ku yihiin dhaqashada xoolaha, halka ay ummadaha kalena ku caanbaxeen waxbeerashada iyo wax soo saarka dalagyada dhulka ee kala duwan. Haddaba Soomaalidu xoolaha ay dhaqato kuwooda ay aadka u jecel yihiin, uguna caansan waxaa ka mid ah geela iyo fardaha. Ogaalkaygana fardaha iyo geelu waa labada meesi aan Soomaalida dhankooda laga marin, lana weydiisan sida ay ku bixiyaan ay adag tahay. Ninka labadaasi meesi bixiyaana isagoo ay ka tahay deeqsinimo, Soomaalidu waxay ku sheegi jireen doqon aan wax dhowrasho lahayn. Wuxuu dhacsadayo intu dhulka xaabto, oo aan xajiiniyo weli mudan isla markaana iskaga tasarufaya laba shay oo aan ciyaar gelin. Soomaalida ninkii fardo iyo geel lihi wuu ilaashan jiray, kii aan lahayna waxa uu u mari jiray dariiq kasta oo labadaasi meesi ku heli karo. Koluu Ilaahay ka barya inuu hablo badan dhalo si uu bal maalin geel iyo fardo ay gurigiisa ugu soo hoydaan, dadkuna ay maalintaasi ugu qiimeeyaan maadaamay Soomaalidu aad u qiimeyn jireen kooda fardaha iyo geela badan leh. oon orodka xiiqin qaar baa xaraame oo xuubta boodada xawaaraha la yaabo, isla markaana uu dhexdooda ka ahaa nin aad uga muuqda lagana qadariyo, sida aan ku sheegay maansadii caanka noqotay ee la odhan jiray dhaqan waxaan lahaan jiray, oo ay ka mid ahaayeen dhaqan waxaan lahaan jiray ninka dheeha foofsada, faraskuna dhankiis yahay, uu yahay nin dhigana ah, dhaga badan yaqaanaan. waana markii aan ka hadlayay qiimaha geela iyo fardaha, ninka leh iyo sida ay Soomaalida dhexdiisa ka ahaayeen. Haddaba maanta geela ka hadli mayno, umana socono, balse arrinka iyo amuurta aan doonayay inaan wax ka idhaahdo ayaa ah fardaha iyo noocyadooda kala duwan. Farduhu sida aan wada ognahay waa xoolo qurux badan, kuwaas oo qof kastaba uu jecel yahay inuu faras lahaado, haddiiba uu waayo inuu koox dhan haysto. Farduhu meesi ahaan iyo nooc ahaanba waa nooca xoolaha ka midka ah ee la yidhaahdo waa nugulka. Nugulka waxaa la isku dhahdaa xoolaha aan biyaha ka qadin muddada dheer ee maalin dhaafka u caba, amaba haddii ay ugu badato 2 cisho ka qada, maalinta saddexaadna biyaha u soo aroora. Haddaba nugulka waxaa la isku dhahdaa fardaha, dameeraha, baqlaha iyo lo'da, halka aanu adhigu soo gelaynin isagu baabka nugulka, waayo waxa uu biyaha ka qadi karaa muddo 5 ilaa 6 cisho ah. sidaasi darteedna isagu waxa uu dibadda ka noqonayaa baabka ay Soomaalidu u taqaano nugulka. Haddaba garashadayda iyo intaan anigu aqaano, qaar badan oo dadkaana ay markaasi igala mid yihiin, Soomaalidu fardaha waxay u dhaqataa dhowr jeedo oo kala ah kuwan soo socda. sida faras xulaano aan xaalu farago mugal xayiska daaqo irga barka xudumo ama xaliifa giyayo la xanaani jirayo xudunta iyo beeraha gaadiid. Soomaalidu fardaha ujeedooyinka ugu waaweyn ay ka leeyihiin dhaqashadiisa waxaa ka mid ah inay gaadiid ahaan u dhaqato. Haddaba gaadiidkaasi aan tilmaamay ma aha mid sida awrta la rarto oo lagu guuro ama lasoo dhaansado, balse farduhu waxay galaan oo ay Soomaalidu u soo ahaayeen intii aan gaadhigu soo bixin gaadiid dagaal iyo gaadiid sahan. Gaadiid dagaal, Soomaalidu fardaha waxay ku geli jireen dagaalka iyo wixii colaad ah. Haddaba dagaaladii farduhu ay aadka ugu soo caanbaxeen waxaa ka mid ahaa dagaaladii uu darwiishkii weynaa hoggaanka u hayay, kuwaasi oo dhex mari jiray Ingiriiska iyo ciidamadii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, geesigii gumaysidiidka ahaa ee Soomaali badan kiciyay. Haddaba waayadaasi waxaa la sheegaa in dagaalada qaar ay ka qayb galeen in ka badan 3,000 oo faras. Tiradaasina waxa ay ku muujinaysaa in farduhu uu ahaa gaadiid dagaal ee kaliya la haystay. Gaadiidka sahan, Soomaalidu sidaan horeba u soo tilmaamay, fardaha waxay u adeegsan jireen gaadiid ahaan. Haddaba dadkii hore ee fardaha dhaqan jiray Soomaalidana ahaa, farduhu waxay uga dhignaayeen gaadhi oo kale. sidaas darteed maalintay sahan tegayaan isla markaana ay soo indhaydhaynayaan dhulal
iyo deegaano kala fog waxa ay gaadiid ka dhigan jireen fardaha oo ay si hawl yar ku gaari jireen meesha ay maalintaasi laabtoodu jeclaato kagana soo warbixin jireen maalin gelinkeed amaba hal maalin. Xarago tiirarka ujeedada ugu waaweyn ay Soomaalidu fardaha u dhaqan jireen ayaa waxaa ka mid ahaa xaragada. Sida aan wada ognahay dadka Soomaaliyeed waa dad xaragada aad u jecel. Haddaba sidaas darteed farduhu waxa ay ahaan jireen xarago lagu xaragoodo. Ninka fardaha lana oo maalintay faan gaadho oo golaha ku ceebeysan jiray kii aan isagu fardo xerada ugu jirin. Bal haddaba waxaan laba u kala qaadaynaa xaragada fardaha loo dhaqan jiray. Xarago fuuliseed. Xarago fuuliseed marka aan leenahay waxa aan ka wadaa ninka fardaha lihi inuu soo fuulo maalinta fagaare la isugu yimaado inta uu faraskiisa u soo shirrado ama uu u soo dhabiso una soo shandheeyo guudka kadibna uu sidaasi ku gaafmeero xafladda iyo nawaaxigeeda. Xarago bixineed. Fardaha waxaa loo adeegsadaa mar kale xarago bixineed taasi oo macnaheedu yahay in faraska hablaha laga bixiyo amaba hadiyad ahaan loo bixiyo adigoo siinaya qof aad u qadarinayso una qiimeynayso. Xaal fardaha waxaa xaal loo bixin jiray maalintii inta gabar Soomaaliyeed la faraxumeeyo sharafteedana meel looga dhaco mustaqbalkeeda iyo gabadhnimadeedana ay sidaasi ku weydo. Ayaantaasi oo kale ayaa fardaha xaal loo bixin jiray oo sidaasi lagu kala ammaan iyo nabadgeli jiray dhiig iyo dhagarna lagaga badbaadi jiray. Bal aan kuu soo qabto dhowr meeris oo ka mid a gabay maantay xumaatee haween xoogis lagu boobo ee xarab dagaal iyo inkaar loo xakama qaato ee xarkaha goosatee la isxajini waayo fardaha xalkii noqon jiriyo xaalka nabadeede xadhigiisa ruuxii qabtaa wuu xamdiyayay. Dhegaystayaal halkaasi ha inoogu joogto qaybtii koowaad ee fardaha aan kaga hadlaynay. oon orodka xiiqin qaar baa xaraame oo xuubta boodada xawaaraha la yaabo oo xuubta boodada xawaaraha